السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتهن دمان شعبك الصوماليات ملكستو الدنيا كجوكتان صالح آذن راقي شيخ عبد الرحمن ويدين رجينا يو فرحت رين عزي كرامو يو شرف إنا تكون ولاتان عمريين انت كدمان وحلينا هاي شعبك الصوماليات ملكستو الدنيا كجوكتان اي أمد المسلمين تأه رمضان كريم وحكى لتوان متقنا ربا شعبك الصوماليات إن لو ذاقو قول يوغونيمو أسوهيتي شعبك الصوماليات أما أمد الصوماليات وعيدنك حوق دلك الصوماليات ودب لو هجاجي دب لو قلبيي دب متقنا بالعدد الله دسي وحلينا هاي وينو ذقرب تاقنا هاي قوليست عيدنك حوق دلك الصوماليات إن شعبك الصوماليات waxay idinku garab taagan yihiin hufnaanta ilaalinta sareynta sharciga ummadda Soomaaliyeed waxaan kale toon bogaadinaynaa baarlamaanka golaha shacabka gudoomiye u yahay mudane mursal muude iyo xigeenkiisa muude waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed Soomaali baa iska leh Soomaaliya ha noolaato nabad iyo nololna ha ku waarto waxaan kale toon aan rabaa inaan idin la sheer gareeyo maanta waxay ku aadan tahay April 12 2021 bisha afaraad taariikh 12keeda waa maalintii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed geesiyaasha naftooda u huray badbaadinta sareynta sharciga iyo mataqaana madax banaanida shacabka Soomaaliyeed waxaan ahaan jirnay geesiyaashii Afrika libaaxyadii Afrika waynu ahaan jirnay waynu nahay waynu ahaani doonaa insha Allah biidnillaahi alkariim waxaan shacabka Soomaaliyeed aan mataqaana rabaa inaan la wadaago mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo war maxaa noo soo wacaysaaniyow مدن مدحوين محمد عبد الله محمد فرماجو ومدحوين حلال حق بلعدي يو متقانا نتيذي يو متقانا قلبينتي يمشاركي متقانا عيدن كحوق دلك الصوماليات كديدي او بنانك صودغي وحان كلتون متقانا بوغادينينا ضمان ciidamada qalabka sida mataqaana shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay ka joogan waxaan leenahay midnimada Soomaaliya waa muqadas xuduudaha Soomaaliya waxa soo xiri doona ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan kale toon bogaadinayaa in doorashadii khaldaneed ee dadbaneed mataqaana shisheeyaha qabka Soomaaliyeed ay ku dilayeen golaha shacabka maanta uu mataqaana ka dhiidiyay in doorasho qof iyo cod loo laabto mata shacabka Soomaaliyeed qorsi ma ogolaanayaan qabkooda iyo hankooda waa uu sareeyaa waxaan leenahay guuleysta baarlamaanka golaha shacabka aqalka sare waa wada gaangistariin waa wada tuugo waa wada khaa'imiin mataqaana ku xiriyo qabiil iyo qurun annaga haddaynu nahay Soomaali waxaynu wax ku nahay Soomaali waxaynu ku faaneynaa Soomaali waxaynu mataqaana u dhimanaynaa Soomaali ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qabyaalad iyo qurun waa uu ka fog yahay waxay mataqaana loo aasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ilaalinta sareynta iyo madax banaanida ummadda Soomaaliyeed inay ka dhiidiyaan waxaan leenahay Sadiq John saakatole waa mataqaana ciidan mataqaana Allah ahayn khalad waa uu galaa saaka way ka hoos baxday mataqaana inaad mataqaana aad ku hadaaqdid waxay caruurta xitaa aysan ku hadaaqin waxaan leenahay Xasan Cali Khayre Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Shariif Cabdiraxmaan Cabdishakuur Saciid Dani iyo Axmed Madoobe waxaynu leenahay Soomaaliya waa dhaqaaqday hor bay u socotay heegan baynu ku jirnaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed anigoo Seattle joogo waxaan ku jiraa kuwa risaafka insha Allah biidnillaahi alkariim
soomaaliya madax bannaanideeda maxaa la dhahay sarreynta sharciga iyo mataqaanaa amniga waxaa sugayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo maalin walba dhiigooda u daadiyo waxaanu leenahay guuleysta guul iyo gobonimo u soo hooyatay ummadda Soomaaliyeed waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo qabiilkoodu uu yahay Soomaali haba yaraatee qabiil kaleete aysan lahayn annagoo dhanna waynu ku garab taagannahay waynu ku taageersannahay waxaan leenahay guuleysta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha ciidanka booliiska taliyaha ciidanka mataqaanaa militariga taliyaha ciidanka badda iyo mataqaanaa taliyaha ciidanka cirka waxaan leenahay Soomaaliya baa iska leh Soomaaliya ha noolaato nabadii nololna ha ku waarto mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waa madaxweyne qab leh waa madaxweyne dulqaad leh waa madaxweyne tanaasul leh waa madaxweyne shacbiyada qaranka Soomaaliyeed ay ku taageereen waxqabadkiisa 2021 xasan cali khayre iyo xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif iyo dani iyo axmed madoobe yaa tol ahay ayay taagan yihiin annagana waxaynu leenahay yaa waxtar lehay nin allaala ninkii waxtar leh baynu taageersannahay waxaynu garab taagannahay maamulka galmudug waxaynu garab taagannahay maamulka hirshabeelle waxaynu garab taagannahay maamulka koonfur galbeed waxaynu garab taagannahay maamulka gobolka banaadir gobolka puntland gobolka mataqaanaa jubbaland shacabka kaca oo ka dhidhiya madax bannaanida sarreynta kala dambeynta iyo maxaa la dhahay dib u dhiska qaranka Soomaaliyeed oo dib loo yegleelayo ma ogolaanayno mataqaanaa cid allaale cidii carqaladeynayso ama mataqaanaa nabadda ama amniga Soomaaliyeed ku soo duulo waxaynu leenahay waxaa naga dhaxeeyo dagaal waxaan leenahay guuleysta team haramacad team gorgor team danab duufaan waxaan idin leenahay shacabka Soomaaliyeed waa idin garab taagan yihiin waa idin taageersan yihiin waxaynu idin leenahay hor u socda dalka xuduudihiisa dhan waa inaad soo xirtaan waa inaynu mataqaanaa shacabka Soomaaliyeed ka dhidhinaa badqabkooda iyo amnigooda annagoo wada dhan oo Soomaali ah annagoo ku faanayno inaynu Soomaali nahay war waa laga tagay qabiil la quursay qabiil qaran noqoni waa qabiil meeshaynu taagannahay waxaana keenay weeyaan dibna u laabani mayno hor baynu u soconaynaa waad mahadsan tahay mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaare ku-xigeen Mahdi Maxamed Guuleed gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka golaha shacabka mursal Axmed Kaariye Qorqor Cumar Finish lafta gareen Cabdicasiis Waare lafta gareen iyo Gootlaabe waynu garab taagannahay shacabka Soomaaliyeed baa gadaashiina taagan cadowgiina cagta hoosteeda baynu leenahay waxaynu leenahay hor ha loo socdo mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxaan ku taageernay waxqabadkiisa waxaynu ku taageernay hufnaantiisa waxaynu ku taageernay uturidda shacabka Soomaaliyeed waxaynu ku taageernay qabka waxaan aniga aan isxignaa Axmed Madoobe waxaan ku diiday oo aan uga soo horjeeday Axmed Madoobe waa qursi ayuu ogolaaday waxaynu ognahay dekada Kismaayo boorka Kismaayo inay mataqaanaa ciidamadii Kenyaanka oo ugaalida cunayeen inay joogaan waxaynu leenahay shacabka Soomaaliyeed 2021 yaa tol ahay ma ogolaanayno waxaynu ogolaanaynaa yaa waxtar lehay waxaan leeyahay guul iyo gobonimo u soo hooyatay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guuleysta insha Allah waxa weeyaan waxaynu joognaa gabagabo dalka amnigiisa gacanteenu ku dhigaynaa xuduudaha waddanka idil waynu soo xireynaa maamulada sida Puntland Jubbaland iyo mataqaanaa Somaliland waxaan leenahay waxaad tihiin Soomaali shacabka Soomaaliyeed baad ka mid tihiin ciidanka qabiilka mataqaanaa ku joogo Hargeyso iyo Garowe iyo maxallahay Kismaayo
waxaan leenahay dadkiina dhinac ka raaca dadkiina dhinaca ka raaca oo mataqaanaa qarannimada mataqaanaa ka dhiidhiya oo diida quursiga shisheeyaha noo diidan inaynu mataqaanaa wax noqonno waxaynu ognahay 30 sano la soo dhaafay inay dalkeena hooyo qabiil iyo qurun mataqaanaa lagu jarjaray waxaynu ognahay daraawiishta dadka la leeyahay waa inay mataqaanaa waa ciidamada waxaan ka hadlayaa daraawiishta Puntland waxaan ka hadlayaa daraawiishta Somaliland iyo waxaan la hadlayaa daraawiishta Jubbaland waxaan leenahay Soomaali baa tihiin mishaarkiina waa diyaar waxaynu ognahay inaad mataqaanaa ku bahdilan tihiin tababarkiina iyo tayeentiinana waa diyaar dad u dhinta dalkiina Soomaaliyeed ha u dhimanin caadifad qabiil qabri kula tagi maayo qabiil litacaarafu weeyaan waxaan leenahay badbaadada qaranka Soomaaliyeed waa inaynu gacmaha isku wada qabsanaa waxaan mataqaanaa aan mar labaad iyo mar saddexaad aan leeyahay guuleysta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed mataqaanaa ka dhidhiyay madax banaanida sareynta ummadda Soomaaliyeed iyo qabkooda iyo sharafkooda iyo cizigooda ilaaliya waxaan leeyahay mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waad guuleysatay waa anaga ku garab taagan anagoo ah shacabka Soomaaliyeed oo gacmaha iswada haysto oo qabiil iyo qurun ka tagay oo mataqaanaa qarannimo iyo mataqaanaa dawlad wanaag iyo kala dambeyn iyo cizi u soo qalab qaatay waxaan mataqaanaa idinkaga tagay shacabka Soomaaliyeed maanta hal bogaadiyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwooda dhiigooda u horay oo mataqaanaa dhintayna ilaahay dambigooda oo mujaahidiin bay ahaayeen ilaahay dambigooda ha dhaafo qabriga Allah u waasiciyo kuwooda noolna waxaan leenahay agteena sharaf baad ka leedihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed agteena waxaad mataqaanaa ka tihiin haliyeeyo agteena waxaa ka tihiin dad aynu ku dhaaranno libaaxyada Afrika ayaa tihiin waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed baarlamaanka golaha shacabka waxay mataqaanaa ka turjumaan rabitaanka shacabka ama ummadda Soomaaliyeed baarlamaanka aqalka sare wuxuu ka turjumaa rabitaanka shisheeyaha waxaanu leenahay hadeenu nahay dhalinyarta hadeenu nahay waxgaradka hadeenu nahay caaqiliinta hadeenu nahay mataqaanaa gudida awoodeed ee shacabka Soomaaliyeed baarlamaanka aqalka sare waxaa mataqaanaa iskugu imaaday gaangistiriin oo Cabdi Xaashi ugu horeeyo oo mataqaanaa Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo mataqaanaa uu kabaq u yahay oo mataqaanaa Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif ay ku jiraan waxaanu leenahay uma hadlaan shacabka Soomaaliyeed kama naxaan shacabka Soomaaliyeed uma turaan shacabka Soomaaliyeed waxay soo horjeedaan waxaanu leenahay mataqaanaa guuleysta baarlamaanka golaha shacabka maanta arintu uu ansixiyayna way mataqaanaa dhaqan galaysaa doorasho qof iyo cod baa loo laabanayaa Xasan Cali Khayre waxaan ku dhihi lahaa adna ma hadli haama kala goysay Xasan Cali Khayre waxaa tahay ninkii mataqaanaa 3 sano iyo 4 sano ku dhawaad aynu mataqaanaa siinay maxallaha kalsooni hadeenu nahay shacabka Soomaaliyeed meeshan amaanta joognana ninkana dhigay weeyaan xukuumaddiisi baa mataqaanaa ka dambeysay dib u dhaca iyo mataqaanaa jahwareerka maanta ka jiro weli wuu hadlayaa waxaa garab taagan maxallaha Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaa garab taagan Sheekh Shariif waxaa garab taagan Xasan Sheekh Maxamuud shalayna wuxuu lahaa ogolaani mayno in anaga wax loo meeriyo waa sidaad hore noogu sheegtay hadeenu nahay shacabka Soomaaliyeed ma ogolaanayno in anaga wax loo meeriyo beesha caalamkana waxa weeyaan safiirada beesha caalamka nin allaala ninkii mataqaanaa wadan allaala wadankii ku xadgudbo madax banaanida qaranka ummadda Soomaaliyeed dictator laga mataqaanaa laga saxiixaya dalkana 24 saacadood gudahooda ayuu ugu baxaya waa inay u hoggaansamaan rabitaanka shacabka ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay guuleysta waynu guuleysanay hor baa loo soconayaa waxaan mataqaanaa aan aad iyo aad u bogaadinayaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo aan mataqaanaa caad qaata noqonin
oo mataqaanaa ka dhiidhiyey rabitaanka shacabka ummadda Soomaaliyeed waad ku mahadsan tahay Generaal Odowa Generaal Xijaar maxallahay ciidanka lugta mataqaana taliyaha ciidanka lugta dhulka kan badda kulli waynu idin garab taagannahay guuleystaynu idin leenahay waynu idin bogaadinaynaa kulligeena waxaanu nahay danab haramacad gorgor iyo duufaan waynu ku dhannahay meel aynu ka aadayno ma leh Soomaaliya hor bay u soconaysaa madax banaanideedana waa muqaddas cid ka mataqaana hadli karta ma leh Saciid Dani iyo mataqaana Axmed Madoobe waxaynu idin leenahay shisheeye kalkaal baad tihiin waxaad tihiin qaran dumis waxaad ka soo horjeedaan rabitaanka dhalinyarta shacabka iyo mataqaana duqeyda maxallaha waxgaradka ummadda Soomaaliyeed ayaad mataqaana ka soo horjeedaan qabkeeni ayaad mataqaana hoos geyseen waxaynu idin leenahay waynu ka dhiidhinaynaa waynu idin ka soo horjeednaa insha Allah biidnillaahi alkariim waynu guulaysanay guushi qarkeeda ayaynu joognaa labadan sano amniga doorasho qof iyo cod inay dhacdo waxa ka horeyso inaynu helno amnigaasna insha Allah biidnillaahi alkariim waxa ka dhiidhin doono oo mataqaana safka u garaacanayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa libaaxyadii Afrika way ahaan jireen way ahaanayaan wayna ahaani doonaan waxa ku mahadsan mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ka dhiidhiyey ku bixiyey awoodiisa ku bixiyey mataqaana tabar iyo mataqaana wax kasta oo caqli ah inay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhinacdooda tababarkooda iyo qalabeentooda iyo mishaarkooda ka dhiidhiyey dal haddaad maqashid waa ciidan mataqaana oo ka dhiidhiya amniga waxaynu leenahay Soomaaliya waa ay guuleysatay Soomaaliya waa ay guuleysatay Soomaaliya cagti horumarkay mataqaana saartay cagti dib u dhiska ay mataqaana Soomaaliya saartay waxaynu leenahay Imaaraat iyo Kenya waxna uma meeriyaan waxba nooma meerin karaan anagaynu wax u meerin jirnay anagaynu mataqaana ka qayb qaadanay madax banaanida wadamo fara badan oo Afrika ah waa insha Allah biidnillaahi alkariim shacabka Soomaaliyeed guul barwaaqo iyo baraaro ayaa wadada idinkugu soo jirto ha ogolaanina inay mataqaana marnaba lidinku orkacsado qabiil iyo qurun waxaynu leenahay Soomaali baynu nahay waxaan ku faanaynaa Soomaali waxaan mataqaana ilaahay aan mataqaana ugu xamdinaynaa naga dhigay Soomaali ka sareeyo ma jirto waxaynu mataqaana ku faantanaa ama aynu wax ku nahay Soomaali qabiil waa qurun war qabiil waa qurun qabiil waxa weeyaan mataqaana Xasan Cali Khayri meeshuu maanta joogo waxa dhigay qabiil wax Axmed Madoobe waxa dhigay weeyaan meeshuu joogo qabiil waxa weeyaan mataqaana Umar Cabdirashiid Cali Sharmaaki iyo wixii la halmaalo meesha iyo Muuse Biixi iyo mataqaana waxa cid allaale cid la halmaasho meeshay joogaan ay fadhiyaan foolxumada iyo mataqaana gacan loo hoorsado shisheeye anagoo dalkeenu uu wada barwaaqo yahay oo ilaahay mataqaana nimcada dunida aan aysan haysanin ilaahay nagu maneysay haddana naga qariyey waa qabiil ogolaani mayno waxaan leenahay guul iyo gobonnimo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guul iyo gobonnimo baarlamaanka golaha shacabka guul iyo gobonnimo xukuumadda mudane ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble guul iyo gobonnimo dhammaan team Farmaajo waxaynu nahay shacabka qaranka Soomaaliyeed oo farmaajaysan oo mahdimidaysan oo qabyaalad iyo qurun soo duugay qarannimo iyo Soomaalinimo mataqaana u soo xeexeetay waynu ka dhiidhinaynaa badqabka naf walbo maxallaha qof kasto oo Soomaaliyeed insha Allah biidnillaahi alkariim ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo isku dhafan oo mataqaana ku abtirsado Soomaali ayaa amniga dalka la wareegayo insha Allah biidnillaahi alkariim waxaynu leenahay dadka aflagaadeeynaayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ugu horeeyo oo mataqaana Xasan Cali Khayri oo mataqaana soo raaco oo Xasan Sheekh Maxamuud adiga ina hadashid waa khalad waa ka xiran tahay garta inaad hadal uu afkaada ka yeero waa khalad وأنك شرطه وفور سنة بختك كي وأنك شرطه لها وحن كجع لها
qarax inuu ka dhaco muqdisho inuu nairobi ka dhaco waxaan ka jeclahay inuu ka dhaco muqdisho waa ninkii mataqaanaa dhahaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed generaal ilaa iyo dable $100 haddaadan ku shaqaynaynin mataqaanaa iska yaac maanta gaashaanlayaasha generaalada 3,000 4,000 ay bishii qaataan waxaa mataqaanaa ay ku heleen amnigooda amniga dalka huritaanka daacadnimada waxaynu ognahay dablaha inuu $300 qaato waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed guul iyo gobonnimo idin soo hoyatay marnaba ha ogolaanina inay nagala carqaladeeyo oo mataqaanaa shilimaad ay soo dhiibeen maxaladahay imaaraad iyo mataqaanaa Kenya sir ay soo maleegtay inaynu mataqaanaa aynu ku dhacno waynu ka soo gudubnay waxaan leenahay Soomaaliya ha noolaato nabadii oo calankeed duubacayno inaga kenwa cirko kale on caadna lahayn ee caashaqaye xidig yahay cadiwa noociida mise carada adow curade cadceedda sideed loo caanoqoye warguul iyo gobonnimo shacabka ummadda Soomaaliyeed waxaynu mataqaanaa aad iyo aad ugu faraxsannahay meeshaynu joogno maanta insha Allah dib loo laabani maayo hor baa loo soconayaa waxaan mataqaanaa bogaadinayaa taliyaha gobolka Banaadir Farxaan waxaan leeyahay waxaan ku rajaynayaa shaqo fudud ilaahay inuu ku yasiro xilka lagu dhiibay mataqaanaa daacadnimo iyo hufnaan iyo mataqaanaa Soomaalinimo inuu ilaahay kuula garab galo waxaan leenahay qabiil iyo qurun waynu ka gudubnay nugulama orkacsani karo mar dambeete nugulama qiyaami karo qabiil mar dambeete qabiil nugulama mataqaanaa hoosaasin karo waxaan leenahay waxaan wax ku nahay waxaan ku faaneynaa waxaynu mataqaanaa nahay kulligeena aynu wax isku qabanaynaa Soomaalinimo Soomaali baa iska leh Soomaaliya ha noolaato nabad iyo nololna ha ku waarto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh